waxaa ina gurigeyga hagaagsado oo aan alaab dhigto oo toos u baxaana waa mar dambe meeshiina u celiyo hal gabadhaas gurigaas laga celin lahay ma laga yaabo inaan u celiyo maxaa loo celin lahay ma laga yaabo inaan ku celiyo may fadhiiso bilaa ila baatee anagaa nin noo raacaysaa aw yasmiin tine yasmiin kaale waxaana maya abaay guri ismaadana shaqaalaha ka ahayd anee horteeda laga dhahay maalin inta caawiye maamadaas ee horteeda laga dhahay gabadha shaqaalaha zaaro lahay Abdullahi iska daa waxaas alxamdulillah hadii walaashay loo imaado mare sahar abaa caafimaad qabta caafimaad qabtaale jikay seexa jirtay jika ha ila shaqaala waay quruxda badan anaka ku nool ma jika door bide baajimahan ma ahayn dadka kale guri joogay waa dadka kale maxaa ani ma isoo laabatid adii mahadki meel aniga maxay ku soo laabataan jacayl ina tire ya ani xanaaqa iga keen maana nina adag keent ma ku diidi lahay inta dhana iga maqnid ani inta iga fikiraysid daran tahay isha marka gurigan ka tagaysay ahayd aw mahadki hadda maad shaqo ku maqan hay markii dib soo waday ma uji maad suu eegayni maad abo wiilkii aroosa waay wiilku aroosa waay ani cid kama dhalan markuu iska wadanay baayo qorshahan wiilka xanaaq asaga wiilka ani dartay gurigooda lagu soo buriyay anigana waa ka xishooday in aan baxdo walaashay aan joogo Abdullahi xanaaqa iga keenteed kale waa ogeed saa ugu murugsanaa hadda maxaa xala marka hadda maxaa sameynaa xala inoo sheegay maxaa xala ila naag min qabaatee maamada xanuunsan maamada xanuunsan maxay tahay maamada ii dhahday anaa caawi maamada samooy inta caawi aan geeyey gurigeeda ee waxay dhahday gabadh oo habran ma u tahay ma aqaan iyo waxay dhahday yaa kula joogo kalaan dhahay waxay dhahday wiilkay gabadh shaqaalaha ma shaqaala iyada ku tilmaamaya ayada ku tilmaamay shaqaale daradaas saaroy ani maanta waa iska booqanayay aniga kaliya ku nool boowa imaad gadaasha meela ka raadin madaxa labadii telefoon ma haysanin hay mahadka kiis ma iga soo sabab hadda ani maxay soo raadin weyse markay gabadhaan ku ceelisay waa telefoonka waa taqaan sabab ay soo raadin weyse sheeg abo lambarka kor ma ka haynin ani kor ka haynin telefoonkeena wuu iga halaabay hay mahadkiis ma aniga soo wacdi lambarka qad soo ma gashi dhan kor ma ka haynin maxaa ku sixirtaan hor sixir maana wax isixir maxaa waa ninkaas ka raacay marka may nambarka maxaa iloosi waa jecel hadduu ku jecel yahay ma wala diiday nambaradeen maxaa ku iloosi waay saaqulu sahro shaqaale ma ka dhigay zahro hada ay waadeen yaano yaa wiilkan walaalkay waaye Cabdullaahi madan soo waday waaye maadiga guriga ugu imaadaan guriga ugu imaatay maxaa waaye zahra iga soo watay iga soo watay saara anaka inay walaashayna tahay ma ogid inta mar wala qabo waaye abo ka waran adoo joogtida nin agtaada hab ku siinaysaa anoo joogo aan inta iga booday aan hab horteeda ku siinaysa abo wiilka ku sheegay mahad waa ninkayga waaye makana ha nuucan noocan maxaa qabaa ay Nuucan. labsana ahay ma nuucana abo Wiil, horta- abo hadii Cabdullaahi yaa maxaa walaalkay ka gacantaada sii daa walaalkay gacantaada iska daa wiilka see ku keent inaa gabar gurigeeda inaa iska imaad u kaxaysatid ii sheeg abo ani abaayo Gabadhan xaaskaygu waaye. xasan abaayo Cabdullaahi iska daa hadda waa maxaan oo kale iska joogo soo fadhiista soo fadhiis maalo madaxaaga maanta nin kuleetigay ugu dhiga ugu deeyay walaalkay waa marka dhibkaas dhan hooyadii ay keentay soo fadhiiso Zahra soo fadhiiso soo maanta ay fadhiiso asmi abaa is fadhiiso buu kacsan anin baa lahaa buu baalantiide ama waxba ku jidinaa iska daa waa waa wata nin saas hadda kuleetigay igu dhigaya weligaa nin dhara kuleetigay kuma dhigin fiiri adi walaalkay nin rag ma aan maka ahanay edadeero fiiri adi walaalkay shoo makaas ugu hadle makaa qaldanaan maa caad iska dhig mahadadi maxaa kaa qaldan abo walaalkay si xusmeed waa ula hadal walaalkay waa soo moogda adoo iga doonan inaa iguursata aniga anagaa qalad ku jirna wax walba way dhici karaan caad iska dhig laakiin sida rag loola dhaqmay lama dhaqman ninkan walaashiisa iska wadatay xataa wax ku daba joogo iyo wax ku raadsanaya ma ka warqabtid haddaa imaaday waddanka xataa inay la soo xiriirtid
walaasha inaa ku ogaado ma inaa waddanka imaatay oo walaashii adaa meel iska gaartee hooyadaa shaqaalo u aheeday hooyadii shaqaale ma wey waa waxaan la yaabanahay taas waa usoo caawiyey iyo soomaalinimo ku jirto haddana waxay dhahday gabar sahraw dhaho adiga miyaa qofka soo caawiya caawinaadi miyaa hooyo haa ma aniga waaye aad iyo aad u mahadsantahay abaal weyna walaahi kugu leeyahay hooyadii macaan abaalka maxaa iigu gudaynaya walaashaa waxay dhahdeen waxaa waay jaariyad waa dhahdeen jaariyad gabar waan iska wadan jiray hooyadaasay u dhaqantay qof loo dhaqmo ma jiro war bini-aadanima u caawiyey anna walaashay ma ogeyn laakiin ilaahan isku kay aadiyey inaan caawiyo ayada walaashayna aan ku helo waxaan la yaabay shaqaale inay ka dhigtaan adiga xumaanta shalay waxaa ku taagnaani si fiican inaa iga hadashido ama may ani xumaanta imaa iloobay fiiriire ilka waad meeshiga waa ogahay laakiin ani waxaa la yaabay sida walaashii oo shaqaalo u dhi gurigaan waxay ka eedeen mida aniga ku faraxsanaa ama ku qanacsanaa maaha maanta ilaahay mahadiis waaye aniga nin shaqaystaa ahay meel waa degi karaa xaaskeyga waa wadan karaa ma fahanti maxaa qabataa aniga ofiisa hadda leeyaha ka shaqeeya ofiska muxuu yahay travel agency oo shirkadda aragtee waay abaabahadi abaabahadi abaa aniga aabahey u dhintay hooyadeyna daaha kama saarna oo soo aragtay wax kasta oo hooyada qof xun waa ma dhihi kari laakiin waxbaa jiro dhib ma laha allaha soo hanuuniyo maanta zahraad ay kula joogtaa gurigii oo shaqaalaha looga dhigayna way kasoo tagtay dhowr marayna arrinkan igu soo laalaabatay shaqaalaha ah ani waxba kuna diidano sax gabarna waa la guursan jiray horaan loo dhahay gabar ama gud raga sax haddaan rag tahay oo dhaqan karti gabadha ani kuna diidaayo xataa waxaan kaa rabo madahan magarate leeyahay in looda guursado anay danay tahay anna aan iska guursado sax marka yaa markaada maxaad leedahay maya ma ani adaa wada xididno masabada ay keensanaysaa maya ani adaa wada xidideyno kala yaraan aan isfahmayna maadaama horta already gabarta ay xaaskayga tahay arrinkaana dad kale meeyaan waa qaladba ma fahanti ani adiga dhamaynayna arrinkan marka walaalow maalmo isii maalmo ha waxaa waye inaa gurigeyga hagaagsado oo aan alaab dhigto oo tooda u baxaana waa mar dambe meeshiina u celiyo gabadhaas gurigaas loo celinaayo ma laga yaabo inaa u celiyo maxaa loo celinaayo ma laga yaabo inaa ku celiyo mar dambana ma joogtido mar dambana ma joogtido bis yaabo mar dambana yaan maqli gurigaas ama ooni sudadaada waaye sudadaada xumaatay meelkaaga maareyso wiilkaaga walaashiis oo weydiis hadda hooyadaan qof aa uga soo tegay malaha naag dariska oo la joogto ama kaloo ay la joogto dariska uga soo tegay ma fahanti marka wallaahi anigana dameerkayga xataa ima sinaan dib dambe ugu laabta baakaas sabab hooyada macaan aniga runtii hooyo la-aanta dhibkeeda haddaa arki lahayd amaano dhan aa uga tegaya amaanta gurigana laga soo watay hadal ay dhahda dartiisna looga soo watay inaa meeshaas ku laabtana mar hooyo waa hooyo mar walba hooyo waa hooyo marka hooyo la-aan soo kordhay hooyo la-aan anaga soo korna naqaano hooyo la-aan anagaa soo korna naqaano hooyada ama xumaato ama samaato iray adaa kula hadlaya aan ma maqli kari hooyadeeda la dagaashay ninkaada hooyadiis oo hooyada inaa soo booqataan ma ogiye intamba meela degan tahay uma ku geenayo maanta walaalow aad iyo aad u mahadsan tahay shaqadiidaas kaga laabanaya maanta halkan ay saaro joogtay meeshay hore joogtay maanta wallahi waa qanacsanaa si fiican u shaqaysan karaa ma fahanti dhib malaabo soo dhawaaw gurigaagu waaye gurneys miyaan waa iga nexisabay insha allah hayaad insha allah maanta haye gurigiina joogtaa walaalaha la sheekeyso dharkaaga waa kuusoo qaadaya diyaar waay inta dhar badan uga tagtaa u malaynayo dharkeedan ku yaala waa ka gurigeedu waay udhehaya caydaas ya hay hayaad yasmiin haya baay khayra dhamaan u rajeena insha allah hay waa ninkeeda Soomaal inay ku qanacsanaato laakiin sida aan ii sheegtay tartiib oo ku dar lahaa abuu ku sheegi lahaa telefoon la-aan abaayo gurise waxaan sameeyaa garan waayo aan mooliya ku diiday mooliya ku diiday maya abuu iga raali noqon maxaa sababta iga qarsatay maxay tahay
sababta ugu cararta gurigaada aadi ku asturneed maxay tahay muu noqonaya in maanta shaqaalo lagu dhaho adaas ku keenay laakiin aniga ninnaas ku xiran kaa furi maayo taasna ma fiicno laakiin ugu sida ugu habboon oo gabar loo bixiya kuu bixin lahaa haddaan waxaanan kugu dari lahaa waayo walaashii iga yaraa tahay hadda boodhig ma lahan kowdhe ani dhib malaalaaba idihinbo qof guriga ka buriyaa tahay may aniga dee walaashay ma burin mugtahe hadda labadooda ninkaan bax dhehe muujiisa qof walba ku imaado gurigaada sabab isu aaday kalsooni isu aaday gurigaada ku jirta meesha soo wala bo nin ma horta lagu dhex jiraan karo ani ayay may jibraan xataa qolka ninkaan inuu xun yahay waxaa sameynaya adaa sitin kasta xamaa qolka jiif oo baneynaya markaas ani wiilkaan haya qolkaygani ya kaygi mustaqbal guur mu ka hadlin mugta hooyadiisa soo burisa bas aa leedhahe hooyadiisa soo burisa macnaheed kusoo burisa maxay weydiinaysa ani wallahi wiilkiba waxaan hadda aqsanaayo wax walba yo isku yo dhamaaday ilaahay ayaa suuq u ahaa hadda laakiin nin fiican qof walba aragtiisa dilo akhri ayaan dara waayo qofka aragiisa kor haddaa fiirisid ha u mooyin siduu yahay si u eg yahay u malayn maro hadda ma arkina wiil fiican ani markii oo ku sheegay ninkaan si duwaashiga waaye waa inaad maaragta xushmaysaa sida shalay aad u dhaqmaysay inaad ugu dhaqmin hadda kadib gurigaas hadduu imaado oo walaasha ay joogin hadda waa wali heshiis waa macaan hadda waa la shiyey hadda dhaqankaaga suubi xididaan aan ninkaas anugu ceebeynin hay adigane waxaan kula dardaarmayaa inaad gurigaas si fiican u dhaqantid insha allah waan iska warhayninaa abo maxamed dharka isku soo bedalaalooyin hay dib magaa walba gurigaaga waaye haye qosle si fiican qosle haye fiiri hadda kadib xaalad deji xaaladda buu way degsan tahay kowdhe ninka inaa xididnaa na ogsa sooma waa ogyahay may hadda markuu imaanayo haddaa arki lehed iyo hadda qaabkaan isma lahan ma fahante marka aboo hogag soo caadin ma aqaani gidaadna waa ismeelee rabto amalena may hay waaya ka soco dhibmada warkii jira baa kaaro imaanaya hadda abaay waa imaaday hadda la soo sheekaysee adaa gabadhna isla tiinaya wal waxyaaba badan kasoo ogow badan adaan ku sugayaa hooyada xaafadan adaa ahayd hay adin xaaladda bal deji wiilka si fiican ula dhaqan may sharciga ka yaala alxamdulilah waa tanaa qofaan caawiyey waxaan ku helay walaasheeda adduunyadan haddaa qof caawisid qofkan kale waa ku helaysaa alxamdulilah hadda reer isku duubana noqon doonaa insha allah waana ka taxadiri doonaa insha allah walle iyo bille waa yaab ya wiilkayga indhahaygoo shan ah asoo sii kukufaya dhacaya baxay ya aniga saan kuma jiri kari gacantii wataa maanta aan iska furay waxee inkastoo ay wada danqanayso hoosta aan bukaanka oo ay xanuunayso haddana waa inaan waco Faadimo aan weydiiyo dee maalintii guriga ay ku arkaysay inkastoo ayaanta ii tiltilmaanta hello Faadimo ساعتها ولا لو في عنا هاي ها ماشي هذه تكتان فديا ما فهمت ولا لو حنقوصة وعي إن كيرا ما أنت كل جات كل أركيس قلت سوى عم بعد يقول تلمت لكن والله وين قرن وعي مو مسكح ذا يراته ها هنا دي شيء كدار تكمل هذا هاست كله بتكمل بمسوي شو سفي عن هاي ولا لو هذا هاي ما أنا حتى أنا ربعت مويل كي ينكاري كرا صح هي ولا هي غير بل وأنا بحر بلاي إسكال قد تقع تشيبه ولا قدر من تقني ماذا سائد كأ كهر ما يويل كي مويل كي أنا وجهرة والله أنا وجهرني بالله أنا هذا بحر قعدت مساس إيدن قنا ساو مقبول جاي يصير يا ما والله ياسمين هاي زارة في عم ستبقى قالوا لي إيجا يعني عايزة على تلفون تيك توك كثير فيرنا اسكو حسنا من قاكل بقدر أن يبي لو أنا بربري ما سي أخرى بناتين صار عمله يا نست والله
kastoo sodadii wax sheegi karin ama waa iska nastay wax ma qabanayo ilaa moogta sodada waxa qabanaya iska jiifo iska cunaayo صح ما taas dib mana hooyada oo kale waa ay saacideynayse maadaama gabadheedana joogin والله خير يقول أبوكم كنا محدث taariikhda adduunka أنا meesha iska fadhiyo nin albaabka soo dhacayaa aniga baa ii warasayta ani xita caafimaadkii ma waraysanay saharo ninka si xun ugu waashto walaalkiin aha saharo aaw أنا حدا أبو ماني بشيء كيس تمام بيجي كدور عبسي على كن دور ما عنده سوق شيء كده بحاول رصاصي على شيء كذا أو شيء كذا ما حد يقول برسيا كدلي لا يقطع عبسي أو بسي حلا أنا مركا وزاد إنه نسقمنا وحاسة هاي برين نرم مسوق عسوق قلا والله وحاسكوا عرقني والله كان في عين وحاسكوا عرقني maamada sadexday ahayd u soo caawiyay mugta tira laga sheekeynay soo maqlay maamadii ama tu ku dhacday maamadii soo caawiyay oo guriga keenay maalinta hore guriga waa ka maqnaa meela jiray ana guriga ka maqan adii waxba idadaheen gabar kala joogtay horeey way maamada gabadhiisii ana idin shaqaalo waa asaga markii walaasha waa ismu dheen laakiin waxa la dhihi magacaas ka xumaaday ما أنت تم معمل صافق أصلا ده الباب مكفر كريم عليه محمد سويس وجينا لا ولا ولا عادي أصلا كسوخ على يعني حب هو يقول كذا وكمان نوع جديد وكمان صادق كي عاوية ولا شيء اسمه أفريقيا هذه لو جستي والله أنت والله بيجعلني ولا كي والله جعلي أحير وكلها كجرا معي والله بحاول لهين قلت مركا أركوا فرح ولكن أنت أصلا كم مقنين هي عبسدي حرام هذا كان اللي يقصني ده عليك بورسا لما لا راح كستجعلك كميني والله خير الله كذي وحصل لها النور هنا بس كل لي معها نسيك ولكن في عين بس قلبي سافي يعني أنت مقنع حقا والله المرض هذا اللي كان في كيري جرى حدها قبرتي محكو دعي غورمي كوسو لا وري ما أنت صوع ما أنا يفتح حد من المهن حد أنا ما في تلفون كاود سنة حد أنا ما بأقول إنه تحافظي صدق أقول لا كسر لنا ما الكارة دي كل جل فكرة بينك مثل حناي قبل إنك ما قشت أنا كلها بس بحياة شعر على جديد والله ساري بصوا نقني ولا شعر ما بيسديه للنور هي معناتي عادي متين wanaagsan oo sheekaysan dadka shal isdagaal mootiin laakiin saas walaalaha saas ugu yaqaan walaalaha